السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو dalkaas Mareykanka magaalada Minneapolis booliiskeeda ayaa soo bandhigay dhacdo ka dhacday magaaladaasi 9kii bisha May hadda aan ku jirno 2026. dhacdadani waxaa ku geeriyootay gabar Soomaaliyeed oo 32 sano jir ah magaceedana lagu sheegay Aisho. sheekadan waxaa soo qoray xukmaal media oo uu leeyahay ninka la dhaho Deeq Darajo oo magaaladaas Minneapolis ku nool. sheekada waxay u qoran tahay sida ku muuqato in gabar Soomaaliyeed loo dilay lacag $50 darteed. Okay, booliska ayaa soo bandhigay haweeneydan idin muuqato oo magaceeda lagu sheegay Henrietta Samandra oo 42 sano jir ah in ay gacanteeda ku toogatay ama ay dishay gabadhaasi Soomaaliyeed Aisho Farax Yusuf oo 32 sano jir ah. sheekada say u dhacday waxaa la sheegay booliska iyo dadka marqaatiyaalka waxay dhaheen in Aisho intaan la dilin ka hor iyo gabadhan madow Mareykanka ah inay muran dhexmaray. Okay, murankan uu quseeyay lacag $50 oo deen ah. kadib murankii oo xoogeystay gabadhii madowga ahayd waxay rasaas ku furtay gabadha Soomaaliyeed ee gurigeeda joogta ayada ay ugu imaatay. kadib meeshii waxaa imaaday booliskii wuxuu helay Aisho oo dhaawac halis ah. kadibna Aisho dhaawacii ayay u dhimatay oo gabadhan hadda waxay gacanta ugu jirtaa booliska magaalada Minneapolis oo maxkamad ay sugaysaa in maxkamad la soo istaajiyo. gabadhan oo madowga ah waxaa la sheegaa dilka kii ugu horeeyay maahane levelkii labaad ee maroosa macna level 2 ay maroosa. marka Soomaalida meel walba ay joogaan waa dhiban yihiin. Allah noo dhib dhaamo. Salaamu calaykum.